asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kusoo dhawaada maalinteena afaraad ee ramadaanka. sida ujeedaan waxaan ka bilaabeynaa number 4 inaa meesha la saaro, kadibna waxaan sameyn doonaa insha allah inaa la furo hadiyada aan u diyaariyey ilmaha. maxaa ku jiri doono insha allah waa isla arkaynaa. halka marka routiinkeena hadda wuxuu noqday subaxi marka lasoo kaco home educationkeena markaan sameyno kadib inaan furno hadiyadahan. maanta wax macaan yaraa ku jiro iyo casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay in wax laga barto nabi muuse calayhi salaam iyo magacyada ilaahay subxaana watacaala inaan sii wadno barashadooda maalinba inaan baranaa with the meaning like maxay ka dhigan tahay raxmaan, maxay ka dhigan tahay raxiim, si aan u fahno magacyada ilaahay subxaana watacaala qurquruxda badan maxay ka dhigan yihiin, si aan ugu dhaqano ilaahayna hanaga dhigo kuwa ku dhaqmo. markaasna waxaan sameeyaa waan u qoraa magacyada ilaahay subxaana watacaala. kadibna banaankaa tagnay maanta qorax fiicanaa jirtay iyo waxaan ku dhahaa waxyar kadibna roobaa nagu da-ay UK haddii deganta waa iska taqaanaa British weather. kadibna waxaan ku dhahaa habeenkii imaanay waa cuntaynay cashadii kadib Prophet Muuse calayhi salaam boogaana haystaa marka aan uga akhriyay iyo waxaan sii akhrisanay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. qaybtan waxay ka hadlaysay maanta markii ugu horeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam khudba ka soo jeediyay masjidka nabiga ku yaala Madiina. waxay laga hadlayna waxay ahayd maasha Allah inuu na soo xasuusiyay nabiga in ilaahay lala kulmi doono